إلهي سبحانه وتعالى منافقين تمركوا سفيني صفات كعان ككوين وحكم ده وهي عان كوين إن يتشعلين إن مسلم كتشبه إسلام كان اللي يقول يست وهي عان كوين بقران كتلمامة إن فرحان مركي أي أركان قوب مسلم كتشبه قوش قالدي أي كرين رين بلابان مركي أركان هدات صفة إسكدر أن تقدر تميل مسلم كتشبه يادي قو فرحسن وصفة من صفات المنافقين إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحكولي إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون بإله إليه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون هدي وناقد هلبا إله إليه سبحانه وتعالى ومسلم كوغول استددك كنحا وإياك إلهي تسؤهم هدي حق الله ومصيبة إذن كهاليشنا waxay oranayaan waa arkayna waxaasoo anagu waa ka tabaabushaysan waxay jeesanayaan baa ilaahay leeyahay iyagoo waliba faraxsan idan muslim jabkii gaal baa ku farxa muslim jabkii munaafiq baa ku farxa haddaad markaa aragto dad islaamu nisba sheeganaya haddana meel muslim lagu jabiyey rayraynayo farxaya oo u arka inaan wax weynaba dhicin qolaama mutatarrifiina macaynkan hada masaatan ahid ay yihiin kuwa jabay wa calaama min calaamaat almunaafiqiin ilaahay baana ku asteeyey idan haddaad astaanta isku aragto waxaad garataa bale inay kuu soo hoyatay aad u baahan tahay inaad dib isu nadiifiso waxa quraanku ku asteeyey munaafiqiinta markuu ka waramayay Allah subhanahu wa ta'ala inay yihiin dad quluubtoodu ay la jirto cadawga muslimka walaalnimana u dareemaya ninka gaaleed colaad iyo xumana u haya ka muslimka ah ilaahi subhanahu wa ta'ala isagoo nabi maxamed tilmaamay wuxuu leeyahay ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم إلهي وحط المامة سبحانه وتعالى ألم تر ماذا كان بإلهي إليه موقتهي إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم بإلهي كوا منافقين تي وحي كليهين ولا لدود بإلهي يا أولا له منافق يا ولا الله قدقي رب العالمين باقلا ولا الله قدقي مؤمنين توحل إنما المؤمنون إخوة أما منافقين توحل يا الله ولا الله يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب وحي كلنا ولا لدود أهل كتاب كأبا إلهي إذن waxay rumaysayin mabaadi'da iyo aragtida ay wadaan ahlu kitaabkiiyo inta gaal ee la socota waa astayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku asteeyey ilaahay wuxuu leeyahay qoladaa waxay ku leeyihiin haddaa laynu khurujtum idinkaanu maciinanay si walba idinkaanu idinla soconnaa waxaa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayaa munaafaqa calaamaadka lagu yaqaana inay ka mid tahay dadka gaaleed inay weli ka dhigtaan weligu waa cidaad u nusrayso u gargaarto walaalatay jeceshay inuu guulaysto aad jeceshahay kuwa mu'miniinta aanay necab yihiin ilaahay baa wuxuu qur-aan ku leeyahay bashir ilmunaafiqiin bianna lahum cadaaban aliima waxaad ugu bushaaraysaa baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala kuwa munaafiqiintii inay leeyihiin cadaab wax laxwiya oo waa kuwa kuwani الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إلهي مؤمن كوحكو منافق سيوحكو أستي الذين يتخذون الكافرين أولياء وكوا قال دولك كدغنا يبا إلهي من دون المؤمنين ومحيو كدغنا أيبتغون عندهم العزة با إلهي مقولي يا شرفتي مقعي الرين رين بين كرادين ينبال لي سبحانه وتعالى إذا هو علامات كله وإلهي سبحانه وتعالى وكنت الماما يا قرآن كمركو أستيني إنما كي منافقين تها
calaamaadka alla ku tilmaamay qur-aanku uu sheegayo waxaa ka mid ah cayda dadka muslimiinta ah asmaa xunxun iyo wax la mida loo bixiyo waa ka ilaahay leh subxaanahu wa tacaala yaquuluuna lain rajacna ila almadiinati layukhrijanna alacazu minha aladal man iladal waa ahlulislaamkii ayay ku sifaynayaan idan intaasoo astoo aan israaciyey hal midaynu ku sheegi karnaa oo ah labada safka ay rabaan inuu guulaysto gooshiisa ay ku farxayaan ay u hiilinayaan ay walaalayiin ay la socdaan waa safka gaalada baa lagu tilmaamo maca daalika waxay la joogaan oo ay ka tirsan yihiin waa bulshada muslimkaa bulshada muslimkaana waa la degan yihiin safkanna waa u sahan iyo horseed iyo taageero iyo wax walbaba u yihiin astaan kaloo xoog laba qur-aanku uu ku sheegay waxaa ka mid ah ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala nimankan calaamaadka lagu yaqaano waxaa ka mid ah haddii ilaahay sharcigiisa lasoo hadal qaado in ilaahay la raaco laga xukum yeesho isaga laga dambeeyo waxyu samaa la raaco mas'aladaasi waa ka dhabar jeedinayaan uma dhegtaagayaan dadkana waxay isku dayayaan inay ka celiyaan oo ka weeciyaan waxay raalli ku yihiin mas'alada wixii cagsigeeda ah ayay ku faraxsan yihiin magacay doonaan markaa ha u bixiyaan oo ah maxaa u cagsiya cuquusha basharku waxay xeeraysay jidaysay ay isim ha wato ilaahay wuxuu sharciyeeyey jideeyey ma rabaan bini aadamku caqligiisa wixii uu ka keenay uu jideeyey ama xeer qabiilha lagu sheego ama xeer dowladada lagu sheego ama xeer united nationa lagu sheego ama xeer ka hooseeya mid ka sarreeya mid ka dambeeya wuxuu doonayaaba noqdee wixii bashar uu ururiyeyna xaggiisay u dheeraynayaan baa ilaahay leeyahy ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay calaamad munaafaqtay markaasaa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablik يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلهي وحليه سبحانه وتعالى ميانة أركين كوى الشيغانية أرنكود الزعم بالغدقي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل كوا شيغانيا إن الروميين وحي أديك لغو سودجيي إي رسوشي هربا وحي لغو سودجيي ومحي قبانيا وحي الربان با إلهي إني حكم كردكتان طاغوت كي يوركي إيدو إلهي وفرين بابكا كقالوبان لكن شيطان با لمتان فق لميي با إلهي محاواستانا مركا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول haddii la yidhaahdabaa ilaahay yidhi waar u kaalaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey nebi moxamed wixii waxyiye loo keenay kaalayo raaca haddii la yidhaahdo ilahay wuxuu yidhi ra'ayta almunaafiqiina yasuduuna canka suduuda waxaad arkaysaa munaafiqiintii oo mas'aladaa ka jeesanayoo diidan oo ka cararaya idan haddaad aragto bulsho ka didayso ka fiigaysa waar ilaahay aan raacno waa sifo ka mida sifaadka munaafaqa lagu yaqaanee rasmiga waa sifo aan u baahannay markaasi inaan iska fogayno oo ah haddii ilaahay iyo rasuulkiisa lagugu yeedho inaana diidin mas'alo 2 3 4 5 20 konton waxay doonaysaa ha noqoto ilaahay iyo rasuulkii haddii lagugu yeedho wixii ka yimi inaanad ku madaxadaygin oo ka jeesanin haddaad ka jeesato waxay noqonaysaa inaad yeelatay sifo ka mid ah sifaadka nifaaqa munaafiqiinta sifaadka uu qur-aanku ku sifeeyey waxaa ka mid ah inay yihiin qaybo ka midi duul tahana muuqaal ahaan dadka markay is hortaagaan jidh ahaan dhisan hadal ahaan hadal deeqsiinaya dadka u sheegaya inay khayr iyo wanaag wadaan waxay rabaan inuu islaax yahay laakiin hadday jeestaan oo markay tagaan bulshadii markii lala hadlay saasaa loola hadlay laakiin marka asxaabtoodii ama gaaladoodii ama kooxdii la isku mabda' ahaa loo tago warkii ka gedisan baa la akhriyaa
mar labaad waxa la yidhi marka ay hadlayaan ay wax sheegayaan sidan bay wax u wadaan haddiise madax laga dhigo oo iyaga arrinka loo dhiibana wax walba waa gundhaban baa ilaahay leeyahay fasaad bay ku gundhabaan waxbaba ma nooleeyaan idan marka hore aanay wax haynin waa warramayaan khayr bay ka warramayaan iyo wax walba in la islaaxinayo markayse iyaga gacantooda soo gasho dad iyo xoolaba waa halaagsamayaan ilaahay baa qur-aanka wuxuu leeyahay waa min annaasi man yucjibuka qawluhu fi lxayaati addunya wayushhidu allaha calaa maa fii qalbi wahuwa aladdu lkhisaam dadka qaar baa ka mida baa ilaahay leeyahay warkiisu uu ku cajab gelinayo oo dadka caliimu lisaanka bale dad dood badan oo doodyahana aladdu lkhisaama dad dood badan oo warkiisa markuu sharxayo si fiican u soo bandhigi kara laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waidaa tawalla min alwilaaya aw min altawalla iyo alicraad kaa doontaba kake haddii ay madax noqdaan ama haddii ay jeestaan oo meeshii laga warramayay ay ka tagaan oo meelahoodii gaarka ah ay tagaan ilahay wuxuu leeyahay sacaa fi lardi liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wannasr wallahu laa yuxibu alfasaad shaqaday markaa u dhaqaaqaan waxa weeyaan baa ilaahay leeyahay inay dhulba fasahaadiyaan oo ay xarth iyo nasl taran iyo beer iyo cid walba inay halaagaan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wallahu laa yuxibu alfasaad baa ilahay yidhi ilahayna fasaadka ma jecla waidaa qiila lahu ittaqi illah markaa dambe uu wax wado haddii la yidhaha war ilaahay ka cabso xaggaad wax ku wadaa akhadathu alcizatu bilism faxasbuhu jahannama walaa bi'sa almihaad isla weynidiiyo kibirkaa qaado oo dadka wuxuu arkaa dadaan waxba garanaynin ama wax badan wuxuu arkaa fasaadkiisu inuu islaaxiyey waayo ilaahay baa wuxuu leeyahy waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lard qaluu inamaa naxnu muslixuun alaa inahum hum lmufsiduun walakin laa yashcuruun baa ilaahay leeyahy haddii la yidhaahdo war dhulka ha fasahaadinina waxay leeyihin annagu waxaanu wadnaaba waa islaax xoogaagan dadka la laynayo waxa kan waxaa looga jeedaa in nidaamka lagu dejiyo arrimuhu inay dhagdhag noqdaan ayuunbaa loo wadaaye adigunbaa angalka qalloocan wax ka arkayaa lagu leeyahay adigaa meeshaad wax ka eegaysaa meel qalloocan tahay ee indhaha fayowa caafimaadka qabaa wanaaggan wadna way arkaan dadka bukaan arag bay ku leeyihin indhaha bukaan arage wixii caafimaad qabee fayoobi way arkayaan waxa islaax iyo wanaag la wado ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa innahum hum almufsiduun innahum hum almufsiduun alaa warhooye adawaatu tanbiih baa ilaahay ku isticmaalay dabeetana ilahay wuxuu leeyahay innahum hum almufsiduun iyagoo keliyunba ah baa ilaahay leeyahay ahlu fasaadka kuwa wax fasaadiya waa iyaga laakiin waxba waanay garanayn waxba waanay dareemayn baa ilahay leeyahay dareenkaa lumay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa min calaamaati nifaaq inay ka mid tahay dadka ahlu iimaanka ee ilaahay rumeeyey inaad u aragto masaakiin aan aqoon lahayn badan wax badan garanaynin sufahaa maangaabiyo garaad laawayaal dabeetana ilahay wuxuu ku leeyay waidaa qiila lahum aaminuu kamaa aamana annaas haddii la yidhaahdo war dadku sida ilaahay u rumeeyeen idina ilaahay u rumeeyo kibirkan iyo waalidan ka daaya qaaluu an nu'minu kamaa aamana asufahaa bay leeyihin ma waxaad naga rabtaa inaanu yeelno dadkan maangaabyada iyo dadka waxmagaratadii siday yeelaan ma saasaad nala rabtaa bay leeyihin ilaahay baa wuxuu leeyahay alaa innahum hum sufahaa walaakin laa yaclamuun iyagaa safiiha baa ilaahay yidhi maangaabyadu waa iyaga laakiin waxbaanay garanayn baa alla leeyahy subxana wa tacaala oo goormuu maangaab garanaya dee inuu maangaab yahay daabuu maangaab yahay siduu u garan inuu maangaab yahay waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya sifaadkooda inay ka mid tahay mu'miniinta meel ay joogaan ama muuqaalkoodu joogo markay yimaadaan inay muujistaan aragta aynay la mid yihiin waidaa laquu aladiina aamanuu qaaluu aamanna laakiin kooxahoodii iyo waxoodii markay u baxaan idaa khalow ilaa shayaaiihim qaaluu innaa macakum innamaa naxnu mustahzi'uun markuu warka dadka la hadlayo shareeco iyo diin iyo arrimo iyo warkaasuu ka warramay khayr buu ka warramay iimaan baanu qaadannu ka warramay laakiin kooxahoodii markuu u taga baa ilaahay yidhi wuxuu odhanaya war waa cayaarin maangaabyadan iyo dadkan wuxuu sheegaye ma waxaasi dhabnagama aha buu leeyahy waa xiiladka siyaasigaa ka mida buu leeyahy wax badan kama aha